diinta islaamku waa diinta labaad ee ugu weyn dalka hindiya oo waxaa dalka ku nool in ka badan 200 oo milyan oo muslimiin ah taas oo hindiya ka dhigaysa mid ka mid ah dalalka ugu muslimiinta badan adduun weynaha iyada oo ay taasi jirto haddana muslimiinta hindiya waqti xaadirkan waxaa lagu hayaa kadeed iyo dhibaatooyin tiro badan sidoo kale shakadu intaas uun kuma yeekaanin ee waxa ay gaadhay siyaasiyiin ka mid ah xisbiga talada haya ee dalku inay fagaare ka aflagaadeeyaan nebi moxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee kolka maxay tahay sababta nacaybka furka tuuray loogu hayo muslimiinta hindiya maxay kaga duwan yihiin dadka diimaha kale haysta sida kristanka siikha iyo buudiiska oo hinduusku aanu ula dhaqmin sida muslimiinta ay ula dhaqmaan hindiya muddo 800 oo sannadood ku aastaysan ayuu islaamku ka soo talinayay dowlado tiro badan oo muslimiin ah ayaa u kala dambeeyay maamulka dhulka ballaaran muslimiintii dhulka ka soo talinaysayna waxa ay ku guuleysteen in ay isku hayaan bulshada hindiya ee aadka u kala dhaqamada iyo diimaha duwan una yagleelaan maamul ay ku wada laabsan yihiin ugu horreyn islaamku waxa uu hindiya ku soo galay ganacsi iyo diin fidiyaal muslimiin ah gogol xariista kadib waxaa fududaatay deegaanka military ahaan in lagu gurguurto waxaa xusid mudan xuduudaha hindiya ee maanta aynu naqaano in ay ka duwanaayeen qaabkii ay ahayd kolkii muslimiintu ay ku soo fool lahaayeen oo waaga hindiya waxaa la isku odhan jiray dalalka maanta la kala dhaho hindiya bakistan bangladesh bhutan iyo nepal sharaaradda dagaalada waxaa kiciyey boqor ka mid ah boqoradii maamulayay maamuladii hindiya ka jira oo ku xadgudbay ganacsato muslimiin ah dumarkoodiina aftuubtay waagii talada muslimiinta uu hayay khaliifkii amawiga ahaa ee alwaliid ibnu cabdilmalik ibn marwan kadib falcelinta muslimiintu falkaa guracan ay ka falceliyeen waqti dheer ma uu qaadanin ee markiiba ciidan mug iyo miisaan leh oo uu hogaaminayo Muhammad ibn al-Qasim al-Thaqafi ayaa u soo dhaqaaqay dhanka Hindiya sanadkii 672 ee miilaadiga maalmo yar gudahood ayaana u suura gashay Muhammad ibn al-Qasim inuu furto bilaad Sind oo ah dalka maanta loo yaqaano Pakistan dhowr boqol oo sanadood kadib weeraradii 17 ah ee boqortooyinka Hindiya uu ku qaaday Muhammad al-Ghaznawi ayaa qayb libaax ka qaadatay dhulkaasi gacanta muslimiinta inuu soo galo boqortooyada al-Ghaznawiya oo ahayd boqortooyo Muhammad al-Ghaznawi uu asaasay waxa ay ka talin jirtay badiba dhulka Pakistan qaybo ka mid ah Afghanistan iyo dhammaan dalka Iran intaa waxa u dheer dhulal hor leh oo maalin walba uu ka farmaroojin jiray boqoradii tirada badnaa ee taagta darna ee Hindiya ka talin jiray kadib dawladda Ghaznawiyadu kolkii ay duuntay waxa hana qaaday boqortooyo lagu magacaabi jiray dawladda Ghuuriyada oo uu dhisay boqor lagu magacaabi jiray Shihabuddin al-Ghuuri balse iyaduna kolkii ay sii liicaysay ay u suura gashay Qutbuddin Aybak inuu maamul u gaar ah cagaha u taago saldanadiisana waxa uu u bixiyay saldanada Delhi isaga oo magaalo madax ka dhigtay magaalada Delhi saldanadaas oo ka talinaysay aaga muddo ka badan 90 sanadood saldanada dhicitaankeedu kaliya waxa uu uga dhignaa muslimiinta Hindiya ifafaalo khayr maxaa yeelay waxa hana qaaday boqortooyadii awoodda badneyd ee maqoolka muslimiinta ahaa ay ka yagaleeleen dalka Hindiya boqortooyadaasi intii ay Hindiya ka talinaysay waxa lagu tilmaamaa in Hindiya gaadhay heerkii ugu sarreeyay ee horumar ahaa haddii ay tahay dhaqaale aqoon iyo isku filnaanshiya boqortooyadaasi waxa ay talinaysay 300 oo sanadood waxaana dhidibada u taagay Zahiruddin Babar oo ka soo jeeday tafiirtii Genghis Khan guulaha Babar waxa ay bilaabeen kolkii ay dagaal foolka fool ah ay iskaga hor yimaadeen boqorkii saldanada Delhi ee waagaas oo ahaa Ibrahim al-Lodhi iyada oo ay jirtay ciidamada Ibrahim al-Lodhi inay gaadhayeen 100,000 oo askari kuwa Babarna kaliya ay ahaayeen 12,000 haddana qorshe wanaaga Babar iyo hubka casriga ah ee ciidankiisu ay ku qalabaysnaayeen ayaa ka caawiyay inuu guusha ku geeraaro dagaalkii labada boqortooyo dhex maray ee la magac baxay Panipat boqor Zahiruddin Babar kolkii uu geeriyooday 1530kii talada boqortooyada waxa isaga dambeeyay boqorro tiro badan oo awood lahaa balse waxa jiray boqor mudan in la barbar dhigo awowgii Zahiruddin Babar boqorkaasi waa Jalaluddin Muhammad Akbar sida lagu la kacay haleeye tiro badan oo kale oo muslimiin ah ayaa Jalaluddin Muhammad Akbar ay Bollywood ka matashay filim sumcad ka dil ah oo uu matalayo Hrithik Roshan kaas oo lagu dhaleecaynayo boqor Jalaluddin Muhammad Akbar balse sooyaalka halyeegani waa uu ka duwan yahay qaabka filimku u dhigayo 50 sanadood oo Jalaluddin uu talinayay kadib waa uu geeriyooday boqortooyadana waxa isaga kala dambeeyay boqorro taariikhdu falalkoodii wali ay xusto waxaana ka mid ah boqor Shah Jahan oo waqtigiisii Hindiya ay ku tallaabsatay qaab dhismeed adduunka ka yaabiyay waaga iyo ilaa maantadan la joogo cajaa'ibta uu boqorkaasi ka tagayna waxa ka mid ah Taj Mahal oo xaaskiisa Mumtaz Mahal uu u dhisay kadib markii ay geeriyootay waxa kale oo ka mid ah dhufayska cas iyo masaajidka weyn ee uu ka dhisay magaalada Delhi
ugu dambayn maamulkii muslimiintu waxa uu soo gabagaboobay kolkii Hindiya uu soo galay gumaystihii Ingiriisku. talada boqortooyada waxaa hayay Bahadir Shaahi labaad oo ahaa oday da' ah oo 80 kor u dhaafay. ciidamada muslimiintu kolkii ay u sheegeen cadawga kaabiga ku soo haya ee soo jiiray dhul badan oo boqortooyada ka mid ah, waxa uu u sheegay cid kale oo hogaamisa inay raadsadaan oo isaga ay iskaga tagaan si uu si nabdoon ugu geeriyoodo. muslimiintii iskood ayay isu abaabuleen iyaga oo ka warqaba marnaba inaanay u babaac dhigi karin ciidanka iyo xuduudda Ingiriiska, balse waxaa dhabarjab iyo qaadam waa ku noqday kolkii ay ka war heleen Hinduuskii iyo Siikhii ku noolaa magaalooyinka Madras iyo Mumbai inay gumaystaha la safan yihiin, taas oo soo dadejisay guuldaradooda. iyada oo ay jirtay muslimiintu intii Hindiya ay ka talinayeen inay cadaalad ku dhiqi jireen dadka maamulkooda hoos yimaada, haddana dadyowga diimaha kala haysta guud ahaan iyo Hinduusku gaar ahaan weligood waxa ay qabeen cadaawad qoto dheer oo muslimka ay u hayeen. dareenkaana waxaa dabada ka riixayay cabsi ay ka qabeen dalka in laga qaado amaba lagaga tiro bato. kolkii gumaystuhu uu ka kacayay dalka Hindiya ayay gadoodeen muslimiinta Hindiya kolkii ay arkeen Hinduuska in aan talo lala wadaagi karin, taas oo ay ka dhalatay inay Pakistan ka go'do dalka Hindiya. intaa wixii ka dambeeyay dadka muslimiinta ah ee reer Hindiya waxa laga ilaaliyay meel kasta oo awood leh, militariga, booliska, sirdoonka iyo jago kasta oo dawladda ka mid ah waxa laga ilaaliyay inay xil ka qabtaan. waxaa intaa dheer masaajiddo tiro badan oo dalka ka dhisan in la duumiyay iyada oo loo aaneynayo dhulka masaajidku uu ka dhisnaa macbad Hinduus ahay inuu ka dhisnaan jiray. waxaana ka mid ah masaajidada la dumiyay masaajidka loo yaqaano Babari ee la dumiyay 1992. sidoo kale waxaa jira masaajido badan oo taariikhi ah oo dhowr boqol oo sanadood soo jiray oo maanta halis ugu jira in la dumiyo. masaajidadana waxaa ka mid ah masaajidka Jiyan Vabi oo ku yaala gobolka Uttar Pradesh waqooyi. sidoo kale maxkamadda magaalada Mathura ee ku taala gobolka Uttar Pradesh khamiistii in soo dhaaftay waxa ay meel marisay galdacwadeed lagu codsanayay guddi in loo saaro soo xaqiijinta dhabnimada sheegashada Hinduusku ay sheeganayaan masaajidka Shah Idja ee taariikhiga ah in laga dhisay goob uu ka dhisnaan jiray macbad Hinduus ahi. masaajidka waxaa la dhisay qarnigii 17aad waxaana dhisay boqorkii Mongooliga ahaa ee Muhyiddin Muhammad. way badan yihiin masaajidada duminta halista ugu jira. waxaa ka mid ah masaajidka Qutbul Manar ee ku yaala magaalada Delhi oo uu dhisay boqor Qutbuddin Aybak qarnigii 13aad. waxaa kale oo ka mid ah masaajidka Kamal Mawla. dhanka kale maxkamadda sare ee Hindiya waxa ay soo saartay salaasadii hore go'aan muslimiinta u diidaya inay tiro badan ku tukadaan masaajidka taariikhiga ee Jiyan Vabi. jaamacado tiro badan oo dalka ku yaala waxa ay mamnuuceen hablaha muslimka ah inay soo xidhaan dharkooda asturan. taabadalkeeda waxa ay kala dooransiiyeen dharka xishmada inay iska dhigaan ama tacliinta ay ka hadhaan. kadib aflagaadadii bareerka ahayd ee suubanaha nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee ay ku aflagaadeeyeen mas'uuliyiinta xisbiga talada haya ee Bharatiya Janata ee uu hormuudka u yahay ra'iisul wasaaraha talada haya ee Narendra Modi, waxaa kacay kacdoon muslimiintu faralka ay kaga biyadiidayaan. dalal kala duwan oo muslimiin ah ayaa aad looga mudaharaaday oo ay ka mid yihiin Pakistan, Bangladesh iyo Hindiya. Soomaalidu inay mudaharaado iska dhaafay badankoodu kama war hayaan dhacdada. almuhim muslimiintii mudaharaadka ka dhigay dalka Hindiya boolisku qaab aad u arxan daran ayuu la dhaqmay. dadkii la xirxiray si adag ayaa loo jirdilay, guryahoodiina waa la dumiyay. dalalka Carabeed gaar ahaan Khaliijka oo ah dalal ganacsi aad u ballaaran oo dhex maray Hindiya wax la sheego kamay oranin falka, talaabo ku haboona kamay qaadanin. Turkigu wuu ka hadlay wuuna diiday. Kuwait iyo Oman iyaguna alaabo Hindiya uga iman jiray ayay cunaqabatayn saareen. Imaaraadkuna malaha dhaleecayn aan sii ridnayn ayuu hawada u mariyay. guud ahaan dhacdooyinka Hindiya ka dhacaya ma aha wax ku kooban muslimiinta dalka ku nool, mana aha wax dad kooban ka soo fulaya ee waa falal ay isku waafaqsan yihiin xukuumadda talada haysa oo ah xukuumad ka soo baxday xisbiga Hinduusiga ah ee xagjirka ah iyo shacabka nacaybka muslimiintu u madaxa maray. waa dhacdooyin hal meel isku biyo shubanaya oo ina tusinaya heerka uu marayo nacaybka muslimiinta loo qabo. balse isweydiintu waxay tahay maxay muslimiintu meel walba ugu dhiban yihiin? maxaa Iigoorka China loogu dhibayaa? maxaa Rohingya Boorma loogu leynayaa? maxaa muslimiinta Bosnia loo gumaaday 9-aadkii? maxaa reer Chechnya dhiiga dhegta loogu daray taladoodana Putin ugu dhiibay calooshii u shaqaystaha Ramadaan Qadirov? maxay dalalkoodu u degi la'yihiin muslimiinta ee qalalaasaha u horseeday? ma iyaga ayaa faralaga gubay ah oo goobta ay tagaan badab qabadsiiya, mise wax kale ayaa jira oo dadka kala duwan ku kalifay muslimka la nool inay birta ka aslaan? aragtidaada faaladii gula wadaag.